golaha wasiirada ee maamulka Galmudug ayaa maanta lagu dhawaaqay kadib shir muddo kooban ka socday xarunta madaxtooyada. Zakariya Yuusuf Kulane oo ah xogayaha madaxweynaha ayaa saxaafadda ka hor akhriyay wareegta madaxweyne oo lagu magacaabayay wasiiro iyo ku-xigeenno. isagoo oo ka doolaya qodobka koowaad faqradiisa koowaad ee axdiga Galmudug oo qeexaya mabaadi'da salka u ah dowlad goboleedka Galmudug isagoo oo cuskanaya qodobka 49aad faqradiisa labaad axdiga Galmudug oo qeexaya awoodda iyo xilka madaxweynaha isagoo oo fiiriyay qodobka 52aad faqradiisa afraad ee qaabka dhismaha golaha wasiirada Galmudug iyo sharcigii la xiriiray ee golaha wakiilada isagoo oo aaminsan in golaha dowladda Galmudug ay ku shaqeynayaan hanaan maamul oo waafaqsan qodobka 53aad faqradiisa afraad ee axdiga Galmudug ayuu wuxuu halkan ku magacaabayaa xubno wasiiro maamulka dowladda Galmudug waana sidatan kow Xasan Cali Gurey wasiirka iskaashiga caalamiga labo Dr. Abdullaahi Salaad Yarow wasiirka xanaanada xoolaha beeraha iyo deegaanka saddex Daahir Maxamed Calasow wasiirka warfaafinta dhalinyarada iyo ciyaaraha afar Dr. Mahad Maxamed Faarax wasiirka caafimaadka iyo bani aadamnimada shan Colonel Abdullaahi Aadan Xuseen wasiirka maaliyadda iyo ganacsiga lix Marwo Ayaan Siciid Cilmi wasiirada horumarinta haweenka shaqada iyo shaqaalaha toddoba Dr. Cali Aadan Cismaan wasiirka dekedaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Faysal Xuseen Ciid wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta qaab dhismeedkan wuxuu ku shaqeynayaa isla markaana lagu maamulayaa xeerka golaha wasiirada ee Galmudug Khaliif Sheekh Xuseen Axmed wasiir ku-xigeenka warfaafinta Abdullaahi Maxamed Xasan wasiir ku-xigeenka caafimaadka Maxamuud Ducaale Kaahiya wakiilka waqooyiga Ameerika ee dowladda Galmudug tikreetadan waxay dhaqan galaysaa marka madaxweynuhu saxiixo isla markaana laga sii daayo warbaahinta. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi. dhinaca kale waxaa maanta si buuxda shaaca uga qaaday inuu yahay musharaxa u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka Puntland Maxamed Cabduqaadir Dheel oo maanta qabtay shir saxaafadeed isla markaana kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada. marka waxaan ku talinayaa inay muhiim tahay in loo diyaar garoobo doorasho oo maamulku fuliyo wacadkii uu maray bulshada oo ahaa inuu xaq dhowri doono waqtiga lagu dhaarshay oo ahaa 4 sano haddii maamulka xaq dhowri waayo wacadka uu maray annaguna raali ka noqon mayno wacadka jab iyo xad ka bax maamulka la yimaado marka waxaan soo jeedinayaa in baarlamaanka waqtigiisii dhammaaday la kala diro doorashadana dhacdo 8 January 2013 halkaas laga ambaqaado wax walba oo qayb ah iyadoo loo helayo waqti ku filan. Cali Maxamed Cali, On Cable TV, Gaalkacyo.